25 Maarso ee sanadkan 2020 Soomaaliya waxay guul taariikhi ka gaartay geedi socodka deyn cafinta kaas oo bilowday sanadkii 2015 iyadoo noqotay dalkii 73aad ee gaara marxaladda go'aan qaadashada barnaamijka hibig loo yaqaano. Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay cafiyeen $695 milyan oo ka mid ah deynta lagu leeyahay Soomaaliya. iyagoo intaasi ku daray in inta dhiman la cafin doono marka ay Soomaaliya si guul ah ku gaarto barta gunaanadka muddo 3 sano gudahood ah. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa isna shaaca ka qaaday inuu cafiyay malaayiin dollar oo ku lahaa Soomaaliya. dalalka ku jira Paris Club waxay iyaguna cafiyeen $1.4 bilyan oo ka mid ah deyntii ay Soomaaliya ku lahaayeen deyn bixiyaasha ku boobay naadiga Paris Club. haddaba maxay arrintaasi uga dhigan tahay Soomaaliya? maxayse yihiin deymaha lagu leeyahay dalka? goorma ayuu bilowday geedi socodka deyn cafintu? maxaa caqabad ah oo laga soo maray intii lagu jiray wajiga koowaad ee safarka deyn cafinta Soomaaliya? tan iyo markii ay xornimada qaadatay Soomaaliya, dawladihii hore ee dalka soo maray waxay heshiisyo laba geesood ah iyo kuwa dhinacyo badanba la galeen dawlado iyo hay'ado caalami ah si loo maalgeliyo ujeedooyin kala duwan oo isugu jira kuwa siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa bulsho intaba. iyadoo Soomaaliya deyntii ugu horeysay ay ka heshay Midowgii Sofiyeeti sanadkii 1962 muddadii ay dalka ka arriminaysay dawladdii militariga ahayd Soomaaliya waxay isku hawshay fulinta mashruucyo horumarineed oo qayb ka ahaa barnaamijkii maalgashiga dadweynaha ee dawladdii kacaanka. iyadoo dhaqangelinta mashaariicdaas ay keentay inay Soomaaliya soo amaahato lacag malaayiin dollar oo deyn ah. deynta dawladdii Soomaaliyeed ee marba jirtay iyo deynta qaadatay dawladdu way tagtaa laakiin waddanku meeshii uu yaalaa. deyntii ugu horeysay waxaan qaadanay ruushkan ka qaadanay deyntii ugu horeysay 1962 ay ahayd. tii ugu dambeysana 90kii bay intii intaa u dhaxaysay wixii la qaadanayay yahay ayaa ma garanaysa ayaa deyn inagu noqday. deymahaasi waxaa lagu falayay mashaariic waxa la yidhaha inagu aan lahayn, ama mashruuca sonkorta ha noqoto, ama mashruucii dharka soo saarayay balcad ha noqoto, ama wadooyinkeenna ha noqoto, ama biyo xidhanada ha noqoto. mid waliba mashruuc bay ku salaysan tahay oo ku identify garaysan tahay. mashaariicda lagu maalgeliyey lacagta deynta ah waxaa ka mid ahaa mashruucii lagu dhisay jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo iyo dhismihii jidka dheer ee isku xira magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. waxaa iyadana lacagtaas looga faa'iideystay mashruucii lagu dhisay dekedaha Xamar iyo Kismaayo, warshadii kalluunka Laas Qoray, warshadii caanaha ee Xamar iyo mashaariic kale oo xoogooda u badnaa wax soo saarka dalka iyo tacabka beeraha oo aan ka xusi karno mashruucii bambeelmada iyo muuska. deymaha meesha ugu quruxda badan ay ku baxday waxay ahaayeen beeraha. mashruucii bambeelmada la dhihi jiray muuska waxay u badnaayeen wax soo saar ay u badnaayeen. nasiib darro qaarkood waa fulin, qaarkoodna ma aysan fulin. intii lagu jiray sanadihii 80meeyadii dawladdii kacaanka waxa ay la kulantay dhibaatooyin ka hor istaagay bixinta deyntii lagu lahaa Soomaaliya, taasoo dhalisay inay marba marka ka dambayso sii kororto deynta isla markaana ay ku dhacaan ganaaxyo iyo dulsaar ka badan intii deynta lagu qaatay. kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay rajadii laga qabay in deynta la bixiyo, waddankuna wuxuu galay dagaalo sokeeye iyo burbur baahsan. ka hor intii aan la cafin deynta Soomaaliya, tirakoob lagu sameeyey cadadka rasmiga ah ee deynta waxa ay gaaraysay $5.3 bilyan iyadoo dawladaha iyo hay'adaha deynta lehna ay kala ahaayeen dalal ku midoobay naadiga Paris, dalal iyo ururo aan ahayn naadiga Paris, iyo hay'adaha maaliyadda iyo dhaqaalaha adduunka oo marka la soo gaabiyo loogu yeero IFIS. waxaan filayaa iminka haddii la isku gegeeyo kala badh inay tahay lacagtii hore la yinaamaya, kala badh kalena dulsaar yihiin. lacagta markaad wax saahayso waxna waa dulsaaro faa'iidada weeyaan faa'iidada, waxna waa penalty oo waad bixin weyday waxa ku soo saarmaya qaraamad baa ku saarmaya. wixii oo dhan la isku geeyey ayaa markaa waxay noqdeen $5 bilyan iyo $300 milyan inaan iska bixinay noqotay, inaan ma bixin kari weynin. 22 sano kadib Soomaaliya waxa ay ka baxday ku meelgaarnimadii ay muddada dheer ku soo jirtay kadib qabsoomidii doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa iyo kuwii madaxweynaha oo markii ugu horeysay lagu qabtay dalka gudihiisa. tallaabadaas oo xoojisay aqoonsigii beesha caalamka u haysay
dowladda Soomaaliya suuro gelisayna la falgalka iyo xiriirka Soomaaliya ee beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka. inkastoo Soomaaliya dib loogu soo dhaweeyay inay xubin firfircoon ka noqoto sanduuqa lacagta adduunka, haddana weli uma qalmin kaalmo dhaqaale inta laga cafinayo deyntii muddada dheer soo jiitamaysay. taas beddelkeeda hay'adda IMF waxay ballan qaaday taageero farsamo iyo mid la talin oo ku aadan hannaanka maaliyadda dalka. awooddii dhaqaale oo aad u yarayd awgeed, dowladda Soomaaliya waxaa ku adkaatay bixinta deynta lagu leeyahay dalka, waxayna wadaxaajood markii ugu horreysay tan iyo 1989 la gashay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunka si deynta looga cafiyo iyadoo laga faa'iideysanayo hindisaha lagu taageero dalalka saboolka ah ee aan deynta iska bixin karin. hindisahaas oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano HIPC. HIPC oo ah marin ay si wadajir u unkeen hay'adaha IMF iyo Banka Adduunka sanadkii 1996 ayaa u sahlay dalal badan oo ka horreeyay Soomaaliya in laga qafiifiyo ama laga cafiyo deyntii saarnayd kadib markii ay si buuxda u soo dhammaystireen shuruudo ay fulinteeda kormeerayso hay'adda IMF. waa waddo la maro weeyaan. waddadana cid waliba iskama mari karto, leanna qof walba uu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafi maayo, laakiin hab baa loo baahan yahay, conditions baa loo baahan yahay, shuruud in la fuliyaa loo baahan yahay. shuruudaya waxaasoo dhan baa la isla gartay. wadannada qaar baa dhibaata ku dhici, way iska bixin kari waayey. dhibaatada hadday iyagu keensadaan oo financial management uu khariban yahay, si looga dhaafaa way adag tahay, aadaa dembiga galay weeye. laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karayn, waddan islaayey oo kale sidii keen oo kale, waddan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayey, laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado. waddannadu markay noocaasoo kale noqdaan adduunkaa isku wada xidhana waxaa la leeyahay waddankaasi hadduu saas sii ahaado dad baa ku dhimanaya oo ku lee'anaye wax lala qabto waa adduunkaa isku imanay marka. arrinta deynta waa arrin aad u culus ahayd, intii muddo dheerna way qaadatay. dowladdii ka horreysay ayaa soo bilowday in heshiis la gasho hay-adaha caalamka. hase yeeshee dowladdan 2017 marka ay soo istaagtay, shayga ugu horreeya ishordhigtaba waxay ahayd markii la arkay deynta Soomaaliya lagu leeyahay inta ay dhan tahay culayskeeda, in ay marka heshiisyadii caalamka aan la gallay sida ay yihiin in loo fuliyo. geedi socodka deyn cafiska Soomaaliya wuxuu soo bilowday bartamihii sanadkii 2015 markaasoo hay'adda lacagta adduunka iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiis ama xeer number 4 kaasoo socday muddo dhowr sano ah, kadibna soo maray heerar kala duwan oo 4 marxaladood gaarayay. IMF iyo World Bank waxayna soo hordhigeen 84 shuruud sharti ah. wax yar maahan 3 sano 4 sano 84 sharti ayay ahayd dowladda Soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo. hay'adda IMF oo xil iska saaraysa garab istaagga dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweysay dhismihii guddiga farsamada deynta Soomaaliya si ay ugala shaqeeyaan dowladda Soomaaliya siyaasadda deyn cafinta iyadoo la raacayo barnaamijka korjoogteynta shaqaalaha loona soo gaabiyo SMP. kadib dadaallo ay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka u gashay fulinta shuruudihii barnaamijka SMP, Soomaaliya waxay ku guulaysatay inay si dardar leh u hagaajiso maamulka maaliyadda dalka, gaar ahaan kordhinta dakhliga canshuuraha dalka, xoojinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka, kor u qaadista miisaaniyadda dalka si ay bulshadu u hesho adeegyada ay dowladda uga baahan tahay loona bixiyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha rayidka. waxay kaloo dadaalladaasi suurto geliyeen dib u howlgelinta waaxyo dhowr ah iyo goobo kale oo muhiim u ah howlaha wasaaradda maaliyadda oo ay ku jiraan 5 xarumood oo lagu qaado canshuuraha dalka iyo dib u dhisidii xarunta ciidamada ilaalada canshuuraha berriga ee Turubataariyada. sidoo kale waxaa dib loo howlgeliyey waaxda maamulka hantida maguurtada ah ee qaranka Soomaaliyeed. horumarradaas la gaaray waxaa suuro geliyey kadib dhabar adayg ay muujiyeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo fuliyo shuruudaha ay ka mid ahaayeen qaadista canshuuraha berriga, badda iyo cirka ee ku waajibay cid kasta,
in shirkad ama hay-ad aan canshuur bixin aysan helin loona cusboonaysiin shati ama qandaraas dowladeed, in mushaar aan la siin shaqaale dowladeed oo koonto xisaabeed aan ku lahayn bangiyada dalka. waxaa kale oo shuruudaha ka mid ahaa in hay-adaha caalamka loo diro warbixinnada la xiriira dhaqaalaha dalka lana baahiyo xisaab xirka dowladda kadib marka ay marto ansixinta hantidhowrka qaranka. 3 sano horteed baan si fiican soo fuul. marka hore waa soo soconnaa shaqooyin ka horreeyay baa jira dowladdan oo dowladdii ka horreeyay soo qabatay baa jira, laakiin markaan buurta reele sida wanaagsan u fananay ee fuulay waxay bilowgii 2017 ay ahayd. si loo gaaro higsiga la jaanqaadka caalamka, xukuumadda Soomaaliya oo wada shaqayn dhow ka helaysa guddiga dhaqaalaha ee baarlamaanka waxay diyaarisay gudbisayna dhowr shuruuc oo la xiriira dib u habaynta maamulka maaliyadda. sharciyadaas oo ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka mid ah sharciga maamulka maaliyadda, sharciga maamulka dakhliga, sharciga furdooyinka. waxaa kale oo la meel mariyey sharciga iibka qaranka oo dadweynaha u suuro gelinaya in loo sinaado mashaariicda dowladda si daahfuranna loogu tartamo. arrimahaas marka shuruucda ah waxa ay qayb ka qaadanayaan hufnaanta maaliyadda dalka. shuruucda waxay ka qayb qaadanayaan oo kale in la helo hay-ada isdheelitiraya oo dhanka maaliyadda ah oo aan qof ama institution gaar ah aanu maamulayn. waa nasiib wanaag, waa farxad, waa dadaal ay dowladda iyo madaxda iyo dadka Soomaaliyeedba ay qayb ka ahaayeen. ka sokow fulinta shuruudaha IMF iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda casriga ah, waxay dhinaca kale tallaabooyinkaasi horumar ballaaran gaarsiiyeen xoojinta dowladnimada iyo maamul wanaagga, gaar ahaan hagaajinta maamulka maaliyadda, iyagoo kordhiyey kobaca dhaqaalaha dalka, sidoo kalena badiyey aaminka dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ku qabaan dowladda Soomaaliya. sidaad og tahay isbeddel weyn ayaa ku yimi xagga ururinta dakhliga laga soo bilaabo 2017 ilaa iyo haddana aynu joogno. tusaale ahaan markaan ku siiyo 2017 dakhliga soo xirooday ee gudaha ka soo xirooday wuxuu ahaa 142 milyan, 2018 wuxuu ahaa 189 milyan, 2019 wuxuu ahaa 229 milyan. taasi waxay ku tusaysaa isbeddelka baaxadda leh ee ay ku socotay kadib markii la sameeyey in si buuxda dib u habayn loogu sameeyo habka dakhli ururinta iyo maamulka dakhliga intaba. nidaamka xakamaynta qarashka wuxuu xadidayaa isla markaana hubinayaa qarashaadka ka baxaya qasnadda dowladda si aysan u dhaafin miisaaniyaddii la ansixiyey, iyadoo wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda soo gudbinayaan ku talagal qarashaadka ay tahay in la bixiyo. arrintaasi oo ay dowladdu kaga kaaftoontay qaadashada deyn cusub oo ka hor imaanaysa shuruudaha deyn cafinta. muhiimadda ugu weyn oo xafiiskan xisaabiyaha guud uu ka shaqeeyo waxay ahayd commitment control. wax la yiraahdo commitment controlka wuxuu xadidayaa wasaaradaha inayna iska gelin qarash deyn inta iska soo qaataan hanala ka bixiyo ayna dhihin. deynta intayna gelin ka hor waa inay hubsadaan maxaa heli karta oo qarash. FMS-ku waa sistamka ugu weyn ee ay wasaaradda maaliyaddu hirgelisay si loola socdo xisaabaadka dowladda oo ay ka mid tahay xogta dakhli aruurinta, deeqaha ka yimaada caalamka, iyo bixinta qarashaadka dowladda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka ah. beerolka waa saxna wax walba. hadda mushaaraadka dowladda cid aanan beerol ku jirin mushaar ma siino. qofkaan beerol ku jirin waa celinay. waxaan dhahnay beerol soo samaysta. oo aragteeno eedo badanaa lagu gelayo, dad badanoo miisaaniyadda ka qaylinayo, canshuurihii la qaadayo, dadkii canshuurtii iloobay. canshuurtiina dowladda in la soo hayo waxay ahayd dagaal adag ee ahayd. dowladda Soomaaliya oo gudanaysa mas'uuliyaddeeda ka saaran kordhinta dakhliga gudaha waxay xoogga saartay hagaajinta nidaamka dakhli aruurinta, taasoo ku siyaadisay $257 milyan oo ka dhigan in ku dhow 100% dakhliga dowladda, wuxuuna korarkaasi intiisa badan ka imaanayaa dakhliga ka soo xarooda adeegyada ay dowladdu bixiso. waxaa sidoo kale kordhay dakhliga dibadda ka yimaada oo ay deeq-bixiyayaasha caalamku ku taageerayeen miisaaniyadda dowladda, iyadoo xukuumaddu ku dadaashay in dhammaan lacagaha lagu soo qaado magaca Soomaaliya ay soo maraan qasnadda dowladda ee bangiga dhexe. maaha waddanku dakhli la'aan. guud ahaan dhaqaaliga waddanka
wax weyn kama bedelin laakiin waxa isbedela waxa weeye discipline-ka iyo qaabka management-ga iyo maamulka uu u shaqaynayo. waxaa lagu guulaystay in isbeddel lagu sameeyo qaab dhismeedka miisaaniyadda iyadoo la waafajiyey 3 gole ee dawladda. waxaa iyadana la diyaariyey lana dhaqangeliyey siyaasadda wadaagga dakhliga dawladda iyo dowlad goboleedyada. sidoo kale waxaa miisaaniyadda la iskula qaabeeyey qaabka shaqooyinka dawladda ay u kala qorshaysan yihiin. dadaalkii xoogganaa oo ay wasaaradda maaliyadda iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya geliyeen ka midho dhalinta geedi socodka deyn cafinta wuxuu rajo wanaagsan iyo ifafaalo geliyey mustaqbalka dalka iyadoo Soomaaliya si aan la filayn ay guul uga soo baxday 88 shuruudood ee ku xusnaa barnaamijka SMP soona gaartay dhammaadka wajiga koowaad ee barnaamijka deyn cafinta. My name is Kristalina Georgieva. I'm the managing director of the International Monetary Fund. I want to congratulate each one of you on this momentous occasion. Your collective commitment to reforms has brought Somalia here to the HIPC decision point at a very difficult moment for the world. I recognize that what you have done has not been easy. The international community stands with you as you continue the journey to bring greater prosperity to all the people of Somalia. Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF ayaa si wada jir u qiray inay Soomaaliya qaaday talaabooyinka lagama maarmaanka u ah bilaabashada deyn cafinta iyagoo ka cafiyey adduun dhan $695 milyan oo ah deyntii lagu lahaa Soomaaliya. Deyn bixiyaasha ku midoobay naadiga Paris Club ayaa iyaguna ka cafiyey $1.4 bilyan taas oo ka dhigan 66% deyntii ay ku lahaayeen Soomaaliya. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa isna shaaca ka qaaday inuu cafiyey malaayiin dollar oo ku lahaa Soomaaliya kadib markii ay dawladda Ingiriiska iyo Midowga Yurub si buuxda u bixiyeen $122.5 milyan taas oo Soomaaliya u suuro gelisay in laga dejiyo cunaqabataynta dibna u bilaabaysa isdhexgal buuxa oo dhexmara bangiga iyo Soomaaliya. maxaan ka faa'iidnay deyn cafiska? maxaan ka faa'iidnay deynun baa la cafiyey ma leenahay maxaan faa'iidnay waxa u horreeyay aan faa'iidnay oon doonayo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxa weeye inaan intaan dadka la fadhiisanno wax la saxeexanno wixii aan la saxeexannay siduu ahaa aan u fulino yaa horta ka faa'iidnay in layna aamino yaa oo la yidhaahdo Soomaalidu waxbay saxeexeen 2 sano horteed waxay saxeexeen siday ahaayeen bay u fuliyeen in la yidhaahdo ta ugu weyna ugu importansan ta ugu faa'iido badan waa taa iyadoo taatay haddana waxaa laynoo furay in adduunka deeqayna siiyaan inayna aaminaan awal lacagaha waxaa lagu dhiibi jiray mashaariicda adduunyada kale in innaga layna soo mariyo ayaynu faa'iidnay waxaynu faa'iidnay in kab miisaaniyad layna siiyo $100 milyan in layna siiyo. guulahaas isdaba joogga ah waxay suuro geliyeen inay hoos u dhacdo deyntii lagu lahaa Soomaaliya loona furo albaabada caalamka si ay u hesho lacago lagu taageero dawladda iyo inay xubin buuxda ka noqoto hay'adda damaanad qaadka maalgashiga caalamka oo ka tirsan Bangiga Adduunka si loo dhiirigeliyo maalgashiga Soomaaliya korna loogu qaado xasiloonida iyo horumarka dalka. shuruudihiina lagu xiray oo dhan markaan fulinay adduunka inuu na aaminay maanta dowladda Soomaaliyeed maanta codkeeda in la maqlaayo oo hay'adaha caalamku ay dhageysanayaan waxaa marka hore waxaan ahayn dad dhuunta ka xiran la hayo deyn lagu leeyahay ana hadli karin oo cabiran maanta codkayaga adduunka waa laga maqli gaar ahaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka gacanta ku hayo. hadda waxaan u soconnaa inaan gaadhno deyn cafin dhammaystiran oo ah deyntii saad og tahay in kala badh ku dhow waa la cafiyey inta kaleetana waxaa loo sameeyey barnaamij la yidhaahdo ECF waxaa ku jira qorshayaal la rabo inay dowladdu fuliso siyaasado iyo dib u habayn iyo dib u qaabayn xagga maaliyadda xagga maaragtay istiraatiijiyada dhaqaale ee dalka waxaa ku jira shuruudo hor leh shuruudaha hor kale waxaan ku rajo weynahay sidii aan kuwii hore uga soo baxnay inaan uga soo baxno
si ay Soomaaliya u gaarto marxaladda gunaanadka ee hindisaha HIPC una hesho deyn cafin dhammaystiran waxaa laga rabaa shuruudo kale oo hor leh ayna ugu weyn yihiin dib u habayn dheeraad ah oo lagu sameeyo maamul wanaagga iyadoo la raacayo barnaamijyo ay diyaariyeen hay'adaha IMF iyo Bangiga Adduunka hirgelinta ballanqaadyadii lagu heshiiyey wejigii kan ka horreeyey ee go'aan qaadashada iyo in ugu yaraan 1 sano ay dawladdu hirgeliso joogtaysana istiraatiijiyadda yaraynta saboolnimada ee kal hore la isku raacay iyadoo ay jiraan caqabado amni kuwa siyaasadeed iyo isbeddel ku socda cimilada adduunka Soomaaliya waxay ku adkaysatay dhammaystirka dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyo kobcinta maamul wanaagga si loo gaaro dib u kabasho dhab ah lana jaan qaada caalamka intiisa kale waddo dheer baa la soo qaaday adkaysi iyo dulqaad ayaa la soo maray waan u mahad celinayaa cid kasta oo qayb ka ahayd mahadda of course waxa iskale dowladda Soomaaliyeed madaxda dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa kale oo runtii mahad leh ganacsatada Soomaaliyeed ee xoolahooda nagu aaminay ee cashuurahooda nagu aaminay iyagana markaa waan u mahad celinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meel walba jooga guda iyo dibadba runtii waa wax aad iyo aad looga mahdiyo waxay dowladda Soomaaliyeed kaligeed fulisay maaheene waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed inay kala qayb galeen shaqaalihii Soomaaliyeed inay kala qayb galeen dowlad goboleedyada inay kala qayb galeen baarlamaanka inuu kala qayb galay sidaa ay tahay haddana hoggaanka ay u hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha waddadan soo marnay ee deyn cafiska soo maray aanu soo maray dhaqaalaheenu inuu meel gaadho waxaan ku tilmaamay inaan buur fuulayno buurra fuulideedu ma fududa midaba mid ay ka dheertana ka adag buurtaasi halka ugu sarreysa anigu waxaan ku sheegaa fadhiga qaraar qaadashada deynta in laynaga cafiyo waxaa ii muuqata buurta dusheeda dad fadhiya oo ina sugaya baa ii muuqata aniga weligaaba soo dagaalano daaloo fadhiiso waxaa doonta halkaa markaa timaadaa shirka la qabanaya haddaad ima weydo maad iman kobtaasaa shirka lagu qabanaya halkaa soo gaadh weya halkii waan soo gaadhnay bishii Maarch 25 baan soo gaadhnay shirkiina waa la qabtay xaggeen uga kacaynaa markaa meesha waxaan uga kacaynaa meesha dhaqaaluhu inuu sii adkaada ah wax alla waxa dawladdu ku shaqayso waana iska bixin karaysaa waxaad kalena aad soo amaahatay hadhow aad iska bixin karaysaa ilaa iyo intaad taa gaadhayso waad hoosaysaa weli ilaa intaad taa gaadhayso meesharka ugu dambeeyana waa kaa weli marka buuraha yareer baa iyaa isdaba yaalla waxaan u malaynayaa haddii la isku tashado waanaan u malaynayaa maanta Soomaaliya way isku tashato haddii la isku tashado in 100 buurood oo kale laga gudbiyo yaan hubaano